Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Gaadiidku waa mid ka mid a waxyaalaha nolosheena ugu saameynta badan, taasna waxaynu ku xaqiijin karnaa saacad walba, daqiiqad walba iyo sidoo kale minid walba waxaynu u adeegsanaynaa inaynu ku aadno jaamacadda, iskuulka ama sidoo kale magaalo ka yara durugsan magaalada aynu joogno masaafo ahaan si aynu u gaadhno ama ugu gaadhno waqti hore ama waqti aada u sareeya. Gaadiidku markaa halkaa waxa uu ka cadaynayaa inuu ka mid yahay waxyaalaha aynaan nolosheena ka maarmin oo ay ka mid tahay waxyaalaha aasaasiga. Haddaba mawduuceena maanta waxaynu ku lafaguri doonaa 5 gaadiid ee ugu xajmiga weyn adduunyadan aynu saarannahay, laakiinse aan loo adeegsan in dad lagu daabulo ama sidoo kale dadii ay ku aadaan magaalo iyo magaalo kale. Badanaa gawaadhidan waxaa loo adeegsadaa waxyaalo aada u kala duwan. Badanaa waxyaalaha ugu badan ee loo adeegsadaa ayaa waxa ay tahay qodista macdanta iyo sidoo kale daabulidda macdanta. Haddaba ku soo dhawaada daawadayaal fiidiyogeenan. Magacaygu waa Cabdullaahi Axmed, halkaad iga daawanaysaanna waa Niil Media. Ku soo dhawaada fiidiyo aynu ku lafaguri doono gawaadhida ugu xajmiga weyn. Lambarka koowaad waxaa soo galay gaadhiga loo yaqaano NASA Crawler Transport. Gaadiidkan mararka qaarkood oran karmayno waa gaadiid, laakiinse waxaynu oran karnaa mashiin weyn oo dhaqaaqaya oo habka socodka uga eg gaadiidka, laakiinse aan ahayn gaadiid ayaynu ku qiyaasi karnaa. Gaadiidkan waxaa la sameeyay 1960kii. Bedka gaadiidkan waxaa lagu qiyaasaa 34,747 mitir, halka dhererkiisana mitir ahaan marka loo cabirayo lagu qiyaaso 6,096 mitir. Culayska gaadiidkan waxaa lagu qiyaasaa inuu yahay 2,721 tan. Waxaa badanaaba gaadiidkan adeegsada shirkadda NASA marka ay sameynayso dayax gacmeedada ay rabto inay cirka ama hawada. Gaadiidka labaad ee kaalinta labaad soo galay waxaa loo yaqaanaa Bigger 288. Bigger 288 waxaa la sameeyay 1978. Culayskiisa gaadiidkan waa 13,500 tan, halka dhererkiisa marka mitir ahaan loo cabirayo lagu qiyaaso 96 mitir. Bedkana waxaa lagu qiyaasaa 46 mitir. Gaadhigani waa mid badanaaba socda. Masaafada uu gooyo waa 0.6 kilomitir halkii saacba. Badanaa waxaa loo adeegsadaa gaadiidkan qodista macdanta iyo sidoo kale kala saaridda ciidda iyo macdanta. Gaadiidka saddexaad ee ugu xajmiga weyn adduunkan waxaa soo galay Caterpillar 797. Shirkadda loo yaqaano Caterpillar waxa ay samaysaa ilaa 3 moodal oo gaadiidkana. Moodalka koowaad waxaa la yiraahdaa 797, waxaana la sameeyay 1999kii, halka moodalka labaadna loo yaqaano 797B oo la sameeyay 2002. Moodalka saddexaad waxaa loo yaqaanaa 797F, waxaana la sameeyay 2008. Gaadiidkan culayskiisu waa 380 tan, halka dherer ahaan marka fiid lagu cabirayo uu yahay 21 fiid. Badanaaba waxaa loo adeegsadaa daabulidda macdanta iyo ciiddu marka isku jiraan oo laga soo qoday buuraha hoostooda. Gaadhiga afraad ee soo galay kaalinta afraad waxaa loo yaqaanaa Bizaya 75710. waxaa samaysa shirkad ku taalla dalka yar ee loo yaqaano Belarusia oo ku taalla bariga Yurub, xuduudna la leh dalka Ruushka. Gaadiidkan dhererkiisa waxaa lagu qiyaasaa marka mitir lagu cabirayo 8.26 mitir, waxaana la sameeyay 2013. Culayskiisu waa 360 kilomitir. Gaadiidka shanaad ee soo galay kaalinta shanaad waxaa laga yaabaa marmarka qaarkiis inaad maqashay, maadaama ay badanaaba isticmaalkiisu ku badan yihiin wadamada Carabta. Gaadiidkan waxaa loo yaqaanaa Dodge Power Wagon. Waxaa la sameeyay 2005
culayskiisu waxa uu gaarayaa 50 tan. Badanaaba waxaa loo isticmaalaa saxaraha maadaama uu leeyahay shaagag waaweyn kuwaas oo u sahlaya inuu saxaraha si wacan u dhex jibaaxo. Waxaa samaysay shirkad ku taalla waddanka United States. Daawadayaal, intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa fiidiyowgii aynu ku lafaguraynay 5 gaadiid ee ugu xajmiga weyn adduunyadan aynu saarannahay. Fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta ku xidhan mar walba Nile Media oo ka daawada taxanayaasha fiidiyoyaasha qiimaha badan iyo sidoo kale waxyaalaha aanu inila wadaagayno oo ku saabsan dhanka madadaalada iyo aqoonta iskugu jira. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. waadna ku mahadsantahay daawashada fiidiyowgan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi